السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كسو دواذا إفراح بشير كجن وولاشين إفراح بشير جنالك وجنالكينا ما أنتو حان ربائنا إدين سو بندقو باستو لسانيا oo aad iyo aad u macaan badan oo na u fudud habka loo sameeyo oo adigana aan ku dhibeynin qof kastana aan dhibeynin ku soo dhawaada haddana waxaan rabaa kaalaya aan idin tusiyo habkaan u sameeyo waxaan isticmaali doonaa nus kiilo hilib shishiid ayaan isticmaali doonaa meeshaan waxaan ku soo diyaarsaday hal basal oo isqabto ayaan ku soo jarjartay meeshaan aad u jeedin meeshaan ku jarjaran waxaan kaloo isticmaali doonaa basal baar ayaan isticmaali doonaa hal xabo isqabo waxaan kaloo isticmaali doonaa 4 qaando oo bur ayaan isticmaali doonaa meeshaan waxaan ku soo diyaarsaday maraq digaag waxa iigu jir xawaaji ayaa iigu jiro kabsar caleen iyo toon aan isku soo shiitay 2 xabo toon iyo wax yar oo kabsar caleen intii adiga aad jeceshahay ku darso wax ma diidaayo waad ku darsan kartaa carafta sida u jeceshahay kule in yar oo hadda qiyaasan ayaan halkan ku soo diyaarsaday oo qiyaas ku filan cuntada aan karinayo meeshaan waxa iigu diyaarsan 400 gram oo farmaajo ayaan ku soo hooshtay meeshaan iigu diyaarsan meeshaan waxa iigu jiro 600 gram oo yaanyo aan soo shiitay ayaa meeshaas iigu jirto halkan waxaan isticmaalayaa litir caano ayaan isticmaalayaa haddana waxaad sugtaan habka aan iskugu dardaraayo waxaan shiilayaa hilibka shiishiidan 400 gram oo hilib shiidan ayaa meeshaan ku jirto waa isku karinayaa wax yar cusbaan ku darayaa si uu u karo waxaan ku darsanayaa hal qaando oo yar oo cusbo ayaan ku darsanayaa wax kale lagu daraayo ma lahan intaas ayaa ku darsanaysaa ilaa uu ka shiilmo biyaha markay ka baxaan sida waxaad u shiilaysaa hilibka oo sambuuska kale ayaad u shiilaysaa ilaa biyaha uu ka baxo markuu gursado uu shiilmo kadib meelaad iska dhigaysaa waxaan haddana hore u sii galeynaa habkii waxyaalihii kale aan isku dardarsan lahayn oo kale aan u baahannahay yaanyadii oo kale hadda sii karsaneena oo la socda asxaabta haddana waxaan rabnaa inaan sameysano maraqii waxaan ku darsaday 4 qaando oo saliid ayaa u baahan tahay markay saliidda wax yar ay kulaato waxaan ku darsaneynaa hal basal aan soo goostay hal basal ayaa u baahan tahay oo jarjaran basashii wax yar markay noo karto waxaan ku darsanaynaa 600 gram oo yaanyadii ayaan ku darsanaynaa aan soo shiidanay kistii yaanyo oo saxanka ku hartay ayaan biyo yar ku shubtay ayaan digsi ku dhex shubtay waxaan ku darsanaynaa xawaajiyadii aan isku soo diyaarsaday iyo toontii iyo kabsar caleentii iyo waxaan ku darsanaynaa maraq digaag jumbo hal xabo ayaan ku darsanaynaa waxaan sugaynaa ilaa intuu nooga karaayo ilaa 15 daqiiqo hilibka iyo yaanyada waxaan sugaynaa 15 ayaan sugaynaa isku dhinac ayaan saartay si iskula sii karaan qasab ma ah inaad sugtid yaanyada ilaa ay ka karayso hilibkana gooni aad u saaran kartaa yaanyadana gooni dhinaca kalena waxaan rabaa inaan saarto hadda basal baartii oo aan soo jarjartay haddaad arki doontiin habkaan iskugu sii daraayo aan idinka sii hormarin hadalka idinka hormarsiinin si ay u fahantiin kana waa noo diyaar dhadhankiisa ayaa dhadhaminayaa ma sha Allah ayuu noogu soo baxay dhadhankiisa sidii la rabay واكنا وانو ديار 15 دقيقة ايو نوغو كاري hilibkii shiidnaay waad u jeedin sidaan ayuu ku soo baxay 3 qaando saliid ayaan digsiga ku shubanayaa waxaan meeshan ku soo diyaarsaday
jeex oo basal ah ayaan meeshan ku soo jarjartay waxaan rabaa inaan jeexii dhammaan ku wada shubto digsigii waad isku shiilaysaa waxaan rabaa hadda inaan ku darsado basal baartii aan soo jarjartay waa hal xabo basal baar aan soo jarjartay ayaan ku wada dhex darayaa waa isku shiilay si fiican markuu iskugu shiilmo ilaa 15 ilaa 20 daqiiqo ayaa isku karinay ilaa 20 daqiiqo markay isku karto si fiican hadda waa kana saan iskugu shiilay ee u jeediyay markay isku shiilanto kadib waxaan ku darayaa liitarkii caano waxaan ku darayaa 4 qaando oo burkii ayaan ku darsanayaa kadib la socda habkii aan iskugu dardarayo waad arki doontiin hadii alla yiraahdo basasha sidaan ayay iskugu shiilmaysaa aad u jeediin ayada dhan way isku dhacaysaa ma sha Allah la saay aad u fiican waaye u macaan badan oo fudud sameynteeda caruurtana way jecel yihiin loo suubiyo odiga loo suubiyo saan ayay isku noqotay qasab ma aha inaad kurtaagnaatid hadawoolin hadii aad daboshid biyo badan ayay ka dhalaysaa sidaan ha kuugu furnaato ogaada bilaadanka isku dhadhan ma ahan way kala duwan yihiin la saanyada cusbo badan ma qaadato isku day inaad ku yareysatiin sidaan ayuu noogu soo baxay basal baartii basashii aan isku shiilanay 20 daqiiqo ayuu noogu karayaa hadda waxaan ku darayaa 20 daqiiqo hadda nooma saarna macnaha caanihii iyo burkii markaan ku darno asaga dhan wuxuu noogu karayaa 20 daqiiqo hadda wuxuu noo saarnay adiga ilaa 7 daqiiqo ayuu noo saarnaa hadda waxaan ku darsanaa 4 qaando oo bur hadda waxaan ku darsanayaa liitarkii oo caano haddana waxaan isku qasaaya caanihii iyo burkii basal baartii iyo basashii kale aan isku kariyay ayaan isku qasanayaa si uu iskugu dhadhagin qaandada ayaa si fiican ayaad ugu walaaqaysaa liitarku caanaho dhan waan ku wada gadistay waxaan ku daray hal xabo maraq digaag ayaan ku darsaday oo midka jumbada ayaan hal xabo ku daray asxaabta oo la socda waan iloobay inaan idin soo wadaaga ayay ahayd afka ayaan idin kaga sheegayaa waxaan sugeynaa ilaa intuu ka karaayo la socda yuusan idin kaga dhigin digsiga waa inaan walaaqdiin markuu soo karkaro la socda waxaan u baahanahay 2 xabo mozzarella ayaan u baahanahay lasaanyada aad ayuu u maceynayaa farmaajada ayada ayaa la isku darayaa wuxuu ka dhigayaa si fuu jijiidaya wuxuu u yeelaa dhanag fiican shacnin uu u yeelayaa 2 xabo mozzarella ayaa u baahan tihiin asxaabay caanihii iyo basal baartii iyo basashii kale aan isku shiiday iyo burkii 20 daqiiqo kadib saan ayuu noogu soo baxay saan ayuu noo noqday haddana waxaan sameynaynaa waan shiidaynaa makiinada ayaan ku shubanayaa waan shiidayaa ee la socda
haddana waa ka makiinadii ayaan ku shubtay. makiinadan xiranayaa waana ku daaranayaa ilaa uu ka shiidmo. haddana waxaan daminaynaa makiinadii. sidaan ayaa noogu soo baxday. waa soo diyaarsaday. meeshaan waxaa iigu jirto basal baartii aan soo shiitay iyo caanihii aan isku soo samaystay. halkan waxaa ku jiro maraqii aan soo diyaarsaday yaanyada ahaay, farmaajadii aan soo hooshtay oo diyaar ka ahayd. meeshaan waxaa iigu jirto hilibkii shiidnaay aan soo karsaday. meeshaan waxaa taalo mozzarella 2 xabo aan soo jarjartay. meeshaan waxaa iigu jiro nus kiilo lasaanya ayaa iigu jirto. marka haddana waxaan rabaa inaan idin tusiyo habka aan isku sarsaari lahaay ee la socda. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan ku bilaabayaa maraqii ayaan kow dhigayaa, ayaan saxanka hoos dhigayaa. hilibkii ayaan hoos dhigayaa la socda. bismillaah. baastadii lasaanyada ayaan dhigayaa hadda. 4 xabo ayaan saartay. haddana waxaan ku xijinayaa yaanyadii. waa inaa iswada gaargaarsiisi fiican ayaa isku gaargaarsiisanaysaa. kadib hadda waxaan saarnaa, haddii aad rabtid hilibka qasab ma aha inaad saan yeeshid, yaanyada ayaad ku dhex darsan kartaa.
haddana qaybtii u dambeysay aan hadda gabagabadii ayaa mareynaa waxaan ku wada shubeynaa farmaajadii ayaan kor ugu shubeynaa marsareeradana waa u dambeysiineynaa saan marka u gargaarsiisid ayada dhan si fiican u gaarsii waxaan kor ka saaranayaa marsareeladii lasaanyadii waa kana waa soo diyaariyay haddana waxaan geystay foornada 190 ayaan geystay waxay noogu karaysaa 40 ilaa 45 daqiiqo ayay noogu karay dabkana waxaa geysataa 190 kadibna noola socda haddana waxaan gelinayaa foornada ما شاء الله تبارك الله سان أيان إدين كوكو سمية أصحابتي اللي شرفت له وكنا وعنت عافيماد له ما شاء الله هكذا ملآننا سميستا سكون دينا سميستين وولاشين إفرح بشير كيجن جانالكا سبسكرايبكا إي لايك تنوصارة نسي أو إدين كوكو صودعو سبسكرايبكا صارتا وحيالها عصبان سوق لنا سيدا أولا سعوتين خير بدن باين إدين تغتغي باي باي